عليك أبا إيه وعليكم السلام أبا. ما شاء الله. سولو أنا مقعد تفاضل ما لي دار اخترت إسبتال كهول كشانة قيت هوينكي دلانك سيكو أدينا باي ما شاء الله بما هو mahadsan tahay waa dhawahay waxaan ahay hooyo dhawaan u mushay ilmaheedu hadda afartan ka baxay sababtoo ah rabay kulukrinta hooyada ina ilmaha kala kursada baan rabaa hadda meeqa bari baa dhalanta waxaan dhan afartan ka ka baxay in kulukurinta marka lagu siiyo hooyada koowaad ma soo booqataa magaca baay magacaygu waxa la dhahaa suuban suuban hooyada koowaad waxa tan soo booqato oo tiraahdo kulukurinta inta badan kulukurinta anaga hooyinka u sheegno anaga u sharaxna adla ku waxa hooyada iskeeda iyada u rabta ma soo booqatay abaay anigu danta igu kaliftay waqtaas abaay inaan ma kala korsado maxaa ku kaliftay waxaan rabaa inuu igu kala koraan iskixiin igu koraan أنا وامسكحية ونصته ساسا u jeclaystay inaan imaado ilmaha kala korsada baa hore muu qaadato kala korin hore marna muu qaado hore kala korin hore hadda ka hor marna ma qaadanin laakiin de ilmahayga labaadbo so waa lagu sheegay marka waa ii sheegay waan arkay badan oo qaatayna waa arkay badan oo diidana waa arkay wax ka aaminsan waa arkay laakiin anigu waa inaan jeclaystay bigaygu noqdo inaan ilmaha kala korsado aniga odagayga raali baas gadan maxay odaygu ku waafaqsan waa ugu waafaqsan odagaaga baa abdeed wallahi baa ugu waafaqsan yahay muhiimadu waxay tahay inaan de soo saarno ilmo tayo leh aad baad mahadsantahay wallahi waa fikrad fiican anaga mar walba hooyinka anaga ku caygelino waxa arkaysa hooyo ilmahan hal sano kala weeyeen sanad kasta ilmo cusub oo walac xanuun xaalad iska gelaysa ee hadana ilmuhu nimcay yihiin ilaahay bixiyo deeq oo alla ku siiyo hadana inaad kala kursatid oo isbeeska dheereysatid oo adigu aanasatid ilmuhu ku kala kora ilmuhu hatta ilmuhu hooyinimo rabaan soo ma ilmuhu u baahan hooyinimo jacayl kalgacayl rabitaan laabta in la geliyo in la hayo in wax la siiyo in laga warqabo haddii marka sanadkan walac tahay sanad dambana umul tahay mar xaamilo tahay mar aad jiiftid waqti ma jiro adiga nafsadaada xataa isnacasa ilmana ta waqti ma helayo fiican waxaan jeclahay ilmaha hadda ilmahaygi hore ilmahaygi koowaad buu ahaa ilmihii kale sanad baa u bixiyay inkastoo aan maqnaa anu safar meel aan ku maqnaa yani adiga odayga waan kala maqnaa anigu waa maqan sabab meel baa ka kala shaqeynaa sigma anigu magaalada aan joogo ka shaqeysa magaalo kale ka shaqeeyaa marka waxa hadda jeclaysan maadaama hadda aan hal meel ku soo wareegnay inaan de ilmaheenina kala korsano aan shaqeysano aan wadaqan nolosheena kalena wadano ilmaheenina aan korsano ma saas weeyaan aad iyo aad waa fikrad aad u fiican sababtoo noloshu de ilmo iyo dhalmo kaliya ma ahan noloshu way qayb badan tahay barasha jirta shaqo jirta caafimaad kala jira nolol kala jirta yani waxa jirta koritaan kale qofku u baahan yahay waxyaabo badan baa jira hayabaayo hadda noocee rabtaa noocee badan baahayna way kala duwan yihiin noocee u baahan hadda inaan ku waxaan rabay midka gacanta la gashto gacanta la gashto ka gacanta la gashto waa haynaa kinihi baa haynaa waxaa haynaa qayb kaloo hoosta qabdha qaybta hoose oo minka loo geliyaa hayna way noocyo badan yihiin noocyada xataa hadda qayb baa noo yaala oo ku tusi karaa dalku ku dhimayaasha qalin laba hormoon buu ka kooban yahay laba hormoon muhiim u ah gabadha mid waxaa la yidhahdaa progesterone iyo estrogen markaas u xiray saddex bilood u xiray soo ma jeedid kana progesterone only pills baa dhahaa isna waa gooni waa qayb kale gooni waxaa jira mid sama jiro hooyada uurka leh ilmaha nuujinaysa isticmaali karta midna isticmaali kara aniga fahansanahay waa fahansantahay marka kii gacanta la gashto waa kana midna hal xabo way midna laba xabo way kan laba xabo way midka 5 sano baa rabaa anigu muddada aad kuugu jiray isagoo 5 sano ah 2 sano gudahood waa iska saari kartaa waa sax hal sano iyo bar waa iska saari kartaa kama ay sharaxay horta minka aad dhahday waa la gashtaa kaaminka gudihiisa waxaa la sameeyaa abaayo kan qalabka yar sida taad u soo ma jeedo kaas inta caagan oo dhan meesha wada galaya ka qayb kamid ah qalab meesha lagu galiyo qalabka yarka marka waa la galiyaa waxa baa lagu galiyaa gudaha ninka yani uu sameeynaya sidii tiid camal oo kale uu ninka si kale u xigay qaybta hoose bay soo jirtay halina si fudud baa looga soo saaray gabadha marka u baahan tahay marka isagu wuxuu ka hortagayaa maadaama minka gudihiisa la galiyay ilmaha markay waa taqaanaa bacriminta markay dhacdo yani biyaha aabaha ka imaanaya iyo hooyada ugxanteeda markay isku tagaan tuubooyin uu minka leeyahay geesaha baa lagu bacrimiyaa halkaas bacrimintu ka dhacday kadib wixii ilmihi yaraa la bacrimiyay baa la soo wadaa waxa lagu dhajiyaa marka minka darbigiisa minka marka saan
kale way gacanteedoo kale ilmahana wax yar way markay meesha ku baxaan halkaas kale lagu dhajiyo tan marka meesha wuxuu ku sameeyaa wax loo yaqaan inflammation meesha inflammation ama meesha inuu ka dhigo meel yani darbiga marka hore inta ilmaha lagu dhajin waa la diyaarshaa waxa loo diyaariyaa sida aqal aroos lama sharaxo lama qurxiyo kale saasoo kale loo sharaxaayo waxa lagu sameeyaa darbiga in dhiig tiro badan la siiyo la nafaqeeyo laga dhigo meel yani ilmo yar oo wax yani daciif lagu dhajin karo yani meel naacim oo aad u diyaarsan aad u qurxan adigu qof soo dhaweynayso meel qurxan uma diyaarisay sidaasoo kale minka ilmaha loogu diyaariya tan marka wuxuu ka hortagaa diyaarinta noocaasa in minka loo sameeyo marka meesha hadaaba la diyaarin meel qaban ay tahay ku dhigi karaa ilmihii kuma sameyso saas marka isagu u shaqeeyo qaybo kamid oo kale wuxuu u shaqeeyaa xusuusta dhacaanay leeyahay dhacaanaha suu sameeyo hal su'aal ku weydiin kareeso gabar anigu aan qandirisanahay waxay dhahday ninka mid kale baa liigu dhajiyo ilmihii banaanka ku sameysmay way dhacdaa mararka qaarkood way dhacdaa taasoo kale waxaa keenaya marar qaar way dhici kartaa Soomaaliland dad kale xaniman ma ahan caadi wada nool oo isqabo nolol ka dhaxaysa weey marka ma badno yani boqolkiiba inta hooyo ee ku dhici karto in ilmuhu banaanka uu ku sameysmo ma badna sideedan daawo marka la qaato wax kasta side effect leeyahay ama problem yani dib bay leeyahay abahay isha hadda magacaaga waxa jira test yar oo hooyada loo sameeyo maartay yani hooyada iyada uur lama gelin karo ama lama siin karo kala korin Soomaaliya maadaama qofku gabadhu ay la nooshahay wadaadkeeda ay la nooshay laasim in baaritaan la mariyo marka magacaaga saddexaad ay cali baaritaan soo sameeyay marka baaritaan ku soo baxo jawaabta iyo su'aal kadib aan ku sameeynaa hadda qayb saas u jeedo Soomaaliya karta ugu soo jeedo soo dhawo jawaabtaad miya waa negative hadda wax uur ma jira bas way marka waa saarnay hadda waa ku sameeynaa insha Allah qolkan tagayna waa ku sameeynaa odagaagu waa isku waafaqsantahay uu fadhi banaanka isaga hadda u wadaybo way ku diyaarana may hadda sidii isku waafaqsantahay caadi suubanay abaayo wuxuu ku galay gacanta hilibka inta badan hooyada loo geliyaa markii la gelinayo hilibka kore waxa la geliyaa qaybta kore oo qaarka kore oo lagu gelinayo marka waxa sameeynaa gacantaada saana sameeynaa in cabiro ka qaadaya halkaas amal oo kale ma ku gelinaya laba xab markii yihiin qaabkan oo kale loo geliyo kala marka iska saarisid waa ina ogaatid ma fakanayso ma dhumayso ma ka soo bixisad mood in shirkeyga dhumayso ma dhumayso maqaarkan kore la gelinayo ma dhumayso hilibka gudaha la gelinayo waa dhuminayo murqaha ku dhiganayo laakiin kore maadaama la gelinayo ma dhumayso marka waxa sameeynaa marka waa nadiifinaya waxba xanuun ma dareemaysid ee ku hubiyeen doonaa kadib la gelinayo hay'adare xush waa tartiibinayaa kuma xanuujinayo insha Allah cabaar buu keenay inta ku soo galay sidii kana xanuun baa dareemaysa waxa culayska waxa iska ilaali xanuun baa biyo qaado suubanay hadda shaqadaadu waa lagu dhameeyay wax biyo ku har waxaan rabaa kaarkaan inaan ku siiyo kaarkaan wuxuu ka xigtay waqti lagu geliyay ilaa waqtiga yani u baahan waqti ku egtahay in hadhow tira laga raaco kaarkaaga inaad statement fiican ay gasho markii kale soo noqonayso oo u baahan tahay in laga saaro kaarkana la imaanayso kiiniga xanuun baabiyana qaado maadaama hadda meeshii aan dhaawacay tahay xanuun ay dareemaysid waxyaaba culayska iyo dhaqdhaqaaqka iyo waxyaaba culayska la xambaar iska ilaali inta daba bari xoogaa odayga maaragtay inaad ka warwareegtid oo ku fiican inta hormoonska ay shaqeynayaan si kala qabsanayaan wareega oo iska dheereynayaa muhiimadu anigu inuu u shaqeeyo waxayna sameeyay shaqada ku maray hadda ayaaba ma hada saaraysa barasho wanaagsan abaa إن شاء الله. أيوة.